wafdi ballaaran oo hogaaminaya mulkiilaha shirkadda habkaha iyo faleenka Asli Maydi Barkhad Jibriil Xasan ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay caasimadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo waxaana xubnaha wafdidaas uu hogaaminaya gudoomiyaha shirkaddaasi ayaa waxaa socdaalkiisa ku helinayay xubno kamid ah ajaanib iyo waliba madax ka socota shirkadda Asli Maydi waxaana ay booqdeen isbitaalkaas oo shirkaddu ay ka hirgelisay magaalada Ceergaabo waxaana ugu horeyntii halkaasi hadallo soo dhaweyn ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo taliyaha qaybta Bleeska gobolka Sanaag Cabdisaaq Maxamed Faarax iyo waliba boqor Cabdilaahi Xaaji Xasan Jibriil Xasan Jibriil iyo wafdida la socota dadkan cadaanka dhaqaatiirta iyo badan iyo biyagelinta aad baan idin soo dhaweynaa run ahaantii gobolkii nibaadmaadeen shirkaddu hadday wax qabato oo ay waxqabadkeedu muuqdo waa loo kacaa oo haddaan reer Sanaagnahay waxtarku nuguma badno oo waxaan jecelahay shirkadda wax qabateen aan anagu ka hortagno meel kasta wada ka hormanaynaa waayo sababtu waxqabadka aad keensatay baan kuugu imanaynaa mulkiilaha shirkadda Asli Maydi Barkhad iyo martida la socota dhaqaatiirta iyo maalgashadayaashaba waxaan leenahay soo dhawaada runtii waxaan oran karnaa shirkadda Asli Maydi jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Sanaag ba wax weyn bay ku soo kordhisay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan maanta halku soo dhaweynaynaa mulkiilaha shirkadda Asli Maydi iyo wafdi ballaaran oo wado oo mashaariic ka fulin doonta gobolka Sanaag qaar furi doonta waan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay shirkadaha kale ee gobolka ka tirsan war meelun wax ka muujiya aan marnu soo dhaweynaa furtaan insha Allah waxaana dhinacooda halkaasi ka hadlay afayeenka shirkadda habkaha iyo faleenka Asli Maydi Cabdicasiis Aadan Jalawi iyo xogayaha guud ee shirkaddaasi Maxamed Ismaaciil Axmed iyo waliba Mrs Diano ka socotay xubnaha wafdidaasi ku soo dhaweynaa wafdi heer qaran oo hogaaminayo gudoomiyaha shirkadda Asli Maydi Barkhad Jibriil Xasan iyo wafdi cadaan oo la socota iyagoo inooga warbixin doona mashaariicda halkan ka wadaan iyo hawsha ay u socdaan waxa wafdigeegan hogaaminayay mulkiilaha shirkadda Asli Maydi Barkhad Jibriil Xasan wafdi ballaaran baan nahayn oo ilaa heer caalami ah oo u socota mashaariic horumarineed oo gobolkan aanu ka fulinay sidii loo sii dardargelin lahaa qaarna xariga looga jari lahaa ma dhamaanayso baahida gobolku way badan tahay waxa kaliya muuqanaya marka laga reebo mashaariicda shirkadani fulisay gobolka in wax laga qabtay wadada kaliya ee dawladii hore ay hirgelisay waxaan jecelahay dawladdan iyo dadka deegaanka u dhashay ama ganacsatada gobolkan u dhashay ama qurba joogta gobolkan u dhashay in loo soo jeesto horumarka gobolka and your hospitality for joining us here as we arrive today in Ceergaabo. So the progress has been good. In the last week we have water for the hospital. We have 2 boreholes, one in the hospital and one just outside. We have a team working on the civil works and fixing a number of things in order for us to make sure that we have the right infrastructure in place. And in the next 2 weeks, we have a team here of medical people, of civil works people, helping us do the final planning. And early next year, we will be ready to open. waxaan ugu dambeyntii halkaasi hadallo mahadcelin ka soo jeediyay mulkiilaha shirkadda habkaha iyo faleenka Asli Maydi Barkhad Jibriil Xasan oo guud ahaanba u mahadceliyay bulshada gobolka isagoo dhinaca kalena fariin u diray qurba joogta gobolka Sanaag soo dhawaanta reer Sanaagno qabteen taliyaashu gudoomiyaha gobolka waan u mahadcelinaa waxaan fariin baan u diray reer Sanaag oo ah gobolku waa gobol deeg ballaaran oo dad badan leh waa aragtaan halkaas hotelkii hore u dhisnay inaan joojinay oo ni warta baahida deegaanka teena ka horeyso waan halkaa hadalka kaga baxaya wada shaqeyn Ali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo